سلام كدب وحمد إسكال الله سبحانه وتعالى تقول ماذا سراكيش قيمها بطل عيدا كحوق دلك الصوماليات وحكومة قبل كريو جروب يكو حجارة إن هل كان فلسة عيدا كحوق دلك الصوماليات إذا بدأ يبلغ جلا أركتيا جارة إن أي راعان وحكومة قبل كران عيدا كحوق دلك الصوماليات يجود هن عيدا بدأ قلب كسيدة وحي وحكو قبل كران إسكو دوبني waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan waxay wax ku qaban karaan iska warhayn waxay wax ku qaban karaan iswaraysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaq ku ah oo ay shalay u dhaarteen hadii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn hadday timaado inaan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayna waxa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan hadii wixii aan ilaalinaynay ay meesha ka baxaanna waxa imaanaysa laba isku soo laabata inay san dhicin taasna nolosha ka dambaysa ee ay salka ku haynayso xog ogaaleed u tiin waana soo aragnay waxaan rabaa marka anigoo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhamaantiin bay idin day doona isxog waraysiga iyo wax aragti ah oo isdhaafsanaysan haday jiraan iyo hogaamada taliska guud in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doonyo halahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddis ku tahay isagoo fiirinaya dhaarta uu shalay u dhaartay dareeska uu u gashaday dhibaatadii uu soo maray saaxiibadii faraha badnaay ee kala duunaa ee anagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guryaha jiifa oo lixaad ku waay waxaan rabaa marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhammaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay diyaar laga ahaanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awoodda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanahay inaga fogaan inaan iska ilaalino meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulino hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kale oo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo wadadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asaguna inuu wadadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa marka xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhamaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aakhirkana sababa meeshaad ku dhima lahayd ama meeshan ku dhima lahayd waxaan rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkan fadhiya inaan ilaalino wixii aan shalay u dhaaranay inaan ilaalino wadajirka ummadeena inaan ilaalino kalsoonida bulshadeena nagu qabaan iyo qiimiga dariiska uu lahaa isku xirnaan inaan muujino taas ayaan wax ku qaban karnaa taliya jira taliya xigeenaa jira taliya ciidan dhulaa jira taliya ku xigeen ciidan dhulaa jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan badaa jira taliya qaybiyaa jira taliya guutayaal hogaamo dhamaan dadkaas oo dhan laakiin ogaada qof kaligii gaar wuxuu qaban karaa ma jiriya ya mas'uuliyadii aan dhamaanteen shalay u dhaaranay taliya iyo taliya xigeen iyo taliya nuuc ciidan iyo taliya qayb kaligoor gaar ma u fuli karaan no oo inoo suurta galiyay maantay inaan halkan